madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta ka qayb galay aas qaran oo loo sameeyay Allaha u naxariistay marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi oo maanta si heer qaran ah loogu aasay xabaalaha qaranka ee magaalada Hargeysa. marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi ayaa kamid ah siyaasiyiinta iyagu xukuumadda u aasay qarannimada iyo dawladnimada Somaliland. iyadoona maanta aaska qaran ee loo sameeyay marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi ay ka soo qayb galeen madaxda sarsare ee xisaabta qaranka Somaliland, shirguddoonka golaha guurtida ee Somaliland, wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland, xildhibaan ka kala tirsan labada gole ee guurtida iyo wakiilada salaadiin, cuqaal, garaado iyo boqolaal qof oo iyagu iskaga kala yimid gobolada Somaliland isla markaana ka soo qayb galay geerida marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi. boqolaal qof oo ku jiray madaxweynaha Somaliland ayaa waxay salaadii jinaasada ku tukadeen meydka garoonka Tereniska ee magaalada Hargeysa, iyadoona salaada kadib meydka loo soo qaaday dhinaca xabaasha. madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo warfidiyeenada kula hadlayay xabaasha dusheeda ayaa waxa uu ehelkii qaraabadii iyo waliba shacabka reer Somaliland uu ka taxsiyadeeyay geerida naxdinta leh ee ku timid marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi oo ku sifeeyay inuu marxuun alla ka cabsi badan isla markaana ahaa qof dhowrsan. madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Axmed Maxamed Qaybi naxariista Janna Ilaahay ka waraabsho, kulligeena samiriyo Allah inaga siiyo. Axmed Maxamed Qaybi wuxuu ahaa shakhsiyad aad u weyn buu ahaa, shakhsiyad taariikh dheer leh buu ahaa, qaranka Soomaaliland kula buu ahaa, ra'iisul muxuu ahaa baarlamaankii ugu horreeyay buu ahaa. wuxuu taariikh badan buu ku soo lahaa ummadda tan, wax badanna wuu soo galay, wax badanna wuu soo maray, magaciisa maamuuska weynna wuu ku lahaa. nin sharaf leh oo khiyaara oo dadku ixtiraamo oo dadku qadariyo meesha jooga ayuu ahaa. dhinaca kale waxa iyaguna halkaasi dhambaal tacsiya u diray ehelkii qaraabadii iyo guud ahaan shacabka reer Somaliland oo ka baxay marxuun Axmed Maxamed Aadan Qaybi, gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland Mudane Salebaan Maxamuud Aadan iyo xildhibaan Xaaji Cabdikariim Xuseen Cabdi Waraabe, gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cid injineer Faysal Cali Waraabe iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Cali Maxamed Waran Cadi ahna gudoomiyaha gudida qabanqaabada aaska qaran ee loo sameeyay marxuun Axmed Aadan Qaybi oo iyaguna dhammaantood tilmaamay in marxuunku ahaa adoon aad u dhowrsan isla markaana alla ka cabsi badan. ilaahay waxaan uga baryaynaa marxuumka in ilaahay jannooyinkiisa balbalaaran ilaahay ka waraabiyo, dambigiisa in ilaahay dhaafo. ummadda reer Somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan qoyskii uu ka baxay ilaahay samir iyo alla ka siiyo. la soo shaqeeyay laakiin waxaan ka xumahay inagu caado waxay noo ah in dadkeenu markuu nool yahay aynu gacan siinin. qof $50 u baahan ayaan $50,000 ku aasna. maanta Qaybi baylaha buu dhintay.